Nigeria dhexdeeda waxaa jooga nin kaasoo saaxiib la ah waraabaha. Kama hadlayno bisadaha quruxda badan iyo ayda, balse waxaan ka hadlaynaa waraabaha dhaqanka ah dadcunka. Just give me. You see. The Hyena Man, Nigeria. People that are different than the rest. I do something for behind. They have a secret with animals. No one is able to figure it out. Not everyone that can just deal with the hyena. Today we're trying to discover everything about them. Waxaan soo gaarnay magaalada Lagos oo ku taalla xeebta galbeed ee dalka Nigeria. Magaaladana hore u ahaan jirtay caasimadda qaranka. Safarkani wuxuu leeyahay ujeeddo keliya, sabab keliya oo na keentay gudaha magaalada. Magic and sorcery and the religion of voodoo in Nigeria. Lagos waa caasimadda dhaqanka iyo dhaqaalaha ee qaaradda Afrika, halka Nigeria ay tahay dalka ugu dadka badan Afrika. Dadkeedu laba jibbaar waxay ka badan yihiin tirada dalka Masar, in ka badan 200 oo milyan oo qof ayaa ku nool. Kala duwanaantu waa mid aad u weyn, farqiguna waa mid muuqda. Taasi ayaa sababtay inaan u jahaysanno magaalo ku taalla waqooyiga fog ee dalka Nigeria. Deegaankan inta badan waxaa ku nool muslimiin ka tirsan qabiilka Hausa, kuwaasoo afkooduna loogu yeedho Hausa. Dhaqankoodu aad ayuu uga duwan yahay inta badan dalka kale ee Nigeria. Waxay ku nool yihiin xuduudda u dhaxaysa dalka Niger iyo waqooyiga Nigeria. Waqtigii uu gaadhay, waxaan ka raadin doonaa magaalada Ragga loo yaqaan Ninka Waraabaha si aan u ogaano sirtooda. Hagaag, hadda waxaan ku jirnaa raadinta Ninka Waraabaha. Waxaan baadigoob ugu jirnaa inaynu helno. Safarkeena xiisaha badan wuxuu ka bilaabanayaa magaalada Kano. Waraabaha Ilaahay naga ilaaliyo. Hadda aanu leexano dhinaca xiisaha leh, nolosha dhabta ah. Halkan waxaa jooga Ninka Waraabaha waa yaab. Waraabaha ayaa hore u soo baxay. Bandhigu wuxuu ka bilaaban doonaa gurigan agtiisa. Sababta ay sidan u sameynayaan maxay tahay? Maxaa sabab u ah in waraabuhu gurigooda la joogo, xaaskooda iyo carruurtoodana aysan ka taaban? Su'aashan ayaa horseedaysa inaan fahanno noloshooda, dhaqankooda iyo sababaha ka dambeeya dhaqamada cajiibka ah ee bulshadan. Bandhigu wuxuu tusayaa dhinacyo aan inta badan la arkin, isagoo muujinaya xaqiiqda nolosha iyo caqabadaha ay la kulmaan. Hadda waxaan isku dayaynaa inaan fahanno waxa ay sameynayaan, muxuu waraabuhu halkan u joogaa, maxay sidan u sameynayaan, waa maxay sababta ka dambaysa. Ma wax caadi ah in waraabuhu joogo guriga xaaska iyo carruurta dhexdeeda? Haddii aad arki jirtay qof ku ciyaara ayda, halkan waxaa lagu ciyaarayaa waraabaha, maska iyo shimbiro yaab leh oo habeenkii soo baxa. Assalamu alaikum. My name is Ibrahim. Ni ne mai wasa da kura. And the Hyena guy. Fiiriya maskan. Dhammaan dadka ayaa halkan iskugu yimaad si ay u arkaan maskan. Hadda waxaa la soo bandhigi doonaa waraabaha. Bandhiga waxaa loo sameeyey si ay u geeyaan daawooyinkooda. Waa hab ay nolol maalmeedkooda kaga sameeyaan. Dhammaan tuulada ayaa halkan iskugu timaada marka waraabuhu soo baxo. Waraabaha waxaa laga soo qabtaa kaynta. Mararka qaar waraabuhu waa halis. Waxaa laga soo qabtaa godkiisa ama meelo kale. Kadib waa inaad sugtaa ilaa 5 maalmood. Waraabaha ayaa meeshan ka soo muuqan doona, markaas ayuu bandhigu bilaabmi doonaa. Badanaa waraabaha, bakaylayaal iyo masku waxay dhammaystirayaan bandhigan. The hyena itself is a medicine for someone to sit on it. It cures all those spiritual attacks at night. Yes, to sit on the hyena.
ismacnaheedu waa in qoyska oo dhan aysan ka biqin xataa carruurtu kama baqato waxaa la sheegaa in fadhiga waraabuhu yahay daawo dhammaan tuulada ayaa isku dayeysa inay fuusho waraabaha maxaa yeelay waraabuhu waa daawo qof gaara waraabaha laftiisu waa dhexdhexaadiye qof kasta oo fuula waraabuhu ma taabanayo mana cunayo waxaa la sheegaa in waraabuhu la hadlayo keliya si uu qofku ugu fadhiisto taasoo bogsiinaysa dadka loo baahan yahay asxaabta waxaan joognaa guri kale annagoo isku dayeyna inaan ogaanno noloshooda iyo habka ay u nool yihiin dadkan waxay haystaan mas bakaylayaal iyo waraabe waxaa jira dhacdo weyn oo dhacda sabti kasta in ka badan 40% dadweynaha Nigeria ayaa ka hooseeya heerka faqriga ma qiyaasi kartaa sida noloshoodu tahay dhammaan dadka magaaladu waa muslimiin dhammaantood waxay ku nool yihiin xadka Niger. Where did you used to live? I was living in Saudi Arabia. Where? In Mecca. He used to live in Mecca, but now he's back here. Nagu dambayn gaarnay meel 2 saacadood u jirta Kabul. Annagoo raadinayna inaan sii fahanno noloshooda iyo dhaqankooda. Halkan waxaa lagu qabtaa bandhigga ugu weyn ee Waraabaha. Hadda waxaan joognaa bandhig kale oo Waraabaha ah. Eega, dhammaan dadkii waxay u dhowaanayaan agagaarka Waraabaha. Fiiri mid kale ayaa halkan jooga. Bandhiggu wuxuu ku bilaaban doonaa dhawaan bartan. eeg noloshooda dhammaan tuulada ayaa halkan isugu soo wada baxaysa tani waa magaalada oo dhan oo ka wada qayb qaadanaysa bandhigan waraabaha waxa lagu gaarsadaa marka uu yar yahay waa la soo qabanayaa waa la barbaarinayaa waa la tarbiyeenayaa waa la rabaynayaa kadibna waa la haynayaa ilaa uu bandhiga si fiican uga qayb qaadanayo fiiri afkiisa ma daboolna diyaar ayuu yahay inuu ku weeraro waqti kasta waan dhaartay waraabayaashan waa kuwa aad u waaweyn runtii oo markii ugu horeysay aan arko waraabe waxa afkiisa ka soo dhex saaraya carabka taasoo muujinaysa awoodiisa iyo halistiisa Open here. Do you have gifts for us? Let me show you. Wow. Let me show you. They just pulled out snakes from the bag. They brought bags, and apparently they're full of snakes. This is how they live. This is their life. Okay, my name is Abubakar. I'm a Hyena man for the Kano States. I have a lot of animal in the bush, and I go and catch hyena and snake. I have the medicine what I go and catch. inkastoo ay muslimiin yihiin sideenna oo kale haddana kani waa dhaqankooda caadooyinkan waxay ka soo jeedaan deegaanka halkan waxay sheegaan in ay tani tahay wax walba oo ka dhigaya ilaha dakhliga magaalada oo dhan ma qiyaasi kartaa in tuuladan oo dhan ay ku tiirsan tahay bandhigan si ay u horumariyaan daawooyinkooda ayaa ka yimaada tuulooyinka kale si ay u daawadaan uguna fadhiistaan waraabaha oo ay bogsadaan hadda waxaan u soconnaa inaan la kulanno hogaamiyahooda hogaamiyuhu waa haweenay ku labisan masaska noocyadooda kala duwan hubo waxaa hadda dhacaya laakiin waxaan u malaynayaa inay tahay nooc sixirka ka mid ah ma garanayo wax dhab ahaantii dhacaya waxaan iga soo hor muuqdaa waa sixir dhaba Delicious? Sweet? taasi ma ahayn wax runa waa wax la yaab leh oo aan la rumaysan karin Cute. MashaAllah. MashaAllah. كتير ولا صغير She speaks Arabic. She was living in Saudi Arabia. شوية بس وين مكة؟ ايوه مكة جدة مدينة Was life in Jeddah good? ايوه ايوه. She used to visit Saudi Arabia a lot. عمرها كيسوا This cobra, if you want to see it, this one, if you bite people, before 1 hour, you die. haweeneydan waxay ku nooshahay goobtan waana hogaamiyaha xayawaanaadka ee magaalada oo dhan waan isboorjeenayaa waad ku mahadsantihiin jacaylkiinna iyo soo dhoweyntiinna aad ayaan idinka mahad celinayaa
Oh my god. Oh my god. But look how she puts snakes in her mouth. Something outstanding. Okay, I want to show you something about the hauntings. How can he put three of them in his mouth? For the medicine. Wallahi in maza ka kira kasan kai ka san kiran mata sai da kudi dan durun wannan kai. Kai cinikin malam sallah cinikin arne tsafi. Wallahi mu ko cinikin mu sai garatawa. They're gathering money for their event. Ya huwa ya man la ilaha illallah wallahu. Ya ka taho dan malam. waxaa jira erayo aanan si buuxda u fahmin laakiin sidoo kale waxay leeyihiin bismillaah subxaanallah ilaahay mooye ilaah kale ma jiro. halkan ayuu waraabuhu ka soo muuqanayaa. dhammaan qoysku waxay soo bandhigayaan hibadooda waxay ay ka dhexleen waalidkood ayaa noqda hibadooda gaarka ah. midba midka kale uu la tartamayaa. taasi waa waxa ay samaynayaan. ma ku biiri kartaa? dhammaan waxay soo bandhigayaan hibadooda eeg waxay iskugu yimaadaan goobo waraysan qof walbaaba wuxuu muujinayaa hibadiisa iyo hal-abuurkiisa. waxay iskula tartamayaan mid walbaaba wuxuu isku dayayaa inuu gaadho awooddiisa ugu weyn. ma qiyaasi kartaa? toddobaadkii hal maalin ayuu bandhigu dhacaa waana maalinka sabtida. qofku wuxuu cabbaa wax la xidhiidha kaneecada iyo duumada taasina waa tartankii uu samaynayay ninkaasi. waxay samaynayaan waxyaabo yaab leh. waa markii iigu horraysay aan arko noloshayda dhammaan tuulada ayaa diyaar u ah bandhigga noocana. bandhigu wuu bilaabanayaa madrow. markuu sidan ugu fadhiyo tani waa daawo u gaar ah qof kasta oo ku fadhiista. waxaana tusayaa iminkana wax gaar ah. waxayna geeyey gurigiisa si inoogu muujiyo waxyaalo yaab leh oo aanan horay u arkin. dhammaan xiisaha iyo sugitaanka ayaa halkan ka muuqda. What just happened? Your hand I text to show the what. Give me your hand. Nothing can happen to you. No, just. I agree with you. You see, give me your shit. dabcan waxa yaab kale halkan waa inuu ii sheegay markii aan taabtay. waxaan farta ku hayaa dhiigayga. waxaan u malaynayaa laftoda inuu ninkani dhiigaygu dibadda keenayba. Is this like gift from God? He tried the sword on me and the blade. How you do this? You see? When he touches me, I'll be able to break the sword. Crack. What do you mean crack? Crack, wait. Yes. Like this? Yes. How you crack it with your... Crack one against. In fact, I was thinking it's impossible. This is very hard, man. No do. You cannot do. No? You cannot do. No touch. How you... I touch you. If I'm touching you, Takes effect on you. medicine will work. You carry something. You not touch you to not work. wuxuu iska dayaa seeftan inuu igu tijaabiyo sida aniguna miyaa yeelayaa warkaale ninkan iga soo bedela. dhammaadkii waa dhacdo cajiib ah oo muujinaysa geesinimada iyo dhaqanka yaab kale ee halkan ka jira. waxay sheegeen inay tani tahay hab lagu helo barako. si loo barakoobo carruurta yaryar ayaa la qaadayaa kadibna waraabaha ayaa la saarayaa qandhuuftiisa amba dhareerkiisa ayaa madaxa lagu marinayaa
saasaad ku barkoobaysaa ayaa lagu leeyahay. I cannot even look. You don't know us. Why you cannot look? Okay, give me your name. What's too much? Maybe the medicine will not work suddenly, like. No. Just my hand. Okay, your hand. Okay, let me show you something. No, steady. Oh my. When you block it, then you see. Allah show you. bandhigu wuu soo xirmayaa asxaabta. Tani waxay ahayd mid ka mid ah bandhiga ugu yaabka badan ee aan weligay arko, meelaha ugu yaabka badan ee noloshayda aan tegay weeyaan. dabcan waxaan u bixinay lacag si aan u taageerno tuuladan. wax kasta waxay ka yimaadeen idinka. waad mahadsantihiin asxaabay. intaas waxaa dheer, bandhigan wuxuu taageerayaa tuulada oo dhan. waxay lacag ka ururinayaan daawadayaasha, kadibna waxay taageerayaan horumarka iyo noloshooda bulshadan.